Salaamantiin asxaabta ku soo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan eegi doonaa kooxda Barcelona oo raadinaysa bedelka ciyaartoyga iyo kabtanka kooxda ee Sergio, maqnaanshaha xidiga kooxda Liverpool iyo rikoodhka horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Aynu ku bilownay kooxda Barcelona ayaa la sheegay inay baadigoob ugu jirto ciyaartoygii bedeli lahaa kabtanka kooxda Barcelona, sidoo kale ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara ee Sergio Busquets. maadaama aanu tababaraha kooxda Barcelona ee Xavi aanu ku kalsoonayn ciyaartoyda hadda joogta ee la filayay inay bedelka u noqon karaan ciyaartoyga Sergio, kuwaas oo kale ah ciyaartoyga Frank Kise iyo Frenkie de Jong. sidoo kale ciyaartoyga Sergio oo la filayo inuu ka tagi doono kooxda Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan ama xagaaga sanada dambe ee 2023 xilligaas oo dhamaanaya heshiiska uu kula jiro ciyaartoyga Sergio kooxda Barcelona. haddaba kooxda Barcelona ayaa doonaysa ama diiradda ku haysa saddex ciyaartoy kuwaas oo la filayo sidoo kalena uu doonayo tababaraha kooxdu inay noqon karaan bedelka ciyaartoyga Sergio. haddaba saddexda ciyaartoy dhammaantood waxa ay ka ciyaaraan horyaalka Ingiriiska ee Premier League, waxayna kala yihiin ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Leicester City ee Tielemans, ciyaartoyga kooxda Chelsea u ciyaara ee Jorginho, iyo ciyaartoyga u ciyaara kooxda Wolverhampton ee Ruben Neves. haddaba saddexdan ciyaartoy waa ay kala duwan yihiin inkastoo ay laba ciyaartoy isku eg yihiin, oo haddaynu eegno xaaladaha saddexdan ciyaartoy, ugu horreyntii ciyaartoyga Tielemans ee u ciyaara kooxda Leicester City waxa uu dhamaanaya heshiiska uu kula jiro kooxda Leicester City dhamaadka xilli ciyaareedkan ama xagaaga dambe sanada 2023. sidoo kale ciyaartoyga Jorginho isaguna waa sidaasi leeg oo waxa uu dhamaanaya heshiiska uu kula jiro kooxda Chelsea sanada dambe agax ama dhamaadka xilli ciyaareedkan. haddaba labadan ciyaartoy ayaa isku eg, taasoo ka dhigi karta in kooxda Barcelona labadan ciyaartoy si fudud ula wareegi karto, inkastoo ciyaartoyga Jorginho yahay ciyaartoyga u dhow ee kooxda Barcelona si fudud ula wareegi karto, maadaama ciyaartoyga Tielemans ay aad u doonaysay kooxda Arsenal, sidoo kalena kooxdu ay xidhiir la sameysay oo ay isku dayday ciyaartoygan inay la soo wareegto, balse kooxdiisa Leicester City ciyaartoygan ilaa hadda wax heshiis kordhin ah uma soo bandhigin. halka uu ciyaartoyga Ruben Neves isagu uu ka duwan yahay oo kooxda uu heshiis kula jiro oo 2 sano ilaa 3 sano ay ka dhimayeen heshiiskiisa, taasoo ka dhigan haddii ay kooxda Barcelona isku daydo inay la soo wareegto ciyaartoyga Ruben Neves in ciyaartoygan ka bixin doonto qiimo lagu qiyaasay 40 ilaa 60 milyan oo euro inta u dhaxaysa. halka uu dadaalo dheer ah sameynayo ciyaartoyga xulka qaranka Argentina iyo kooxda Roma ee Dybala si uu uga qayb qaato koobka adduunka ee ka dhici doona wadanka Qatar. ciyaartoygan kadib markii uu dhaawac ka soo gaadhay kulan uu ciyaarayay kooxda Roma ayaa la filayay inuu ka maqnaan doono koobka adduunka. haddaba ciyaartoygan ayaa hadda waxaa la xadiday muddada uu ka maqnaan doono garoomada ama xilliga uu kusoo laaban doono. ciyaartoyga Dybala waxa uu kusoo laaban doonaa garoomada 3 ilaa 4 toddobaad kadib, taasoo ka dhigan inuu soo laaban doono ciyaartoygani haddii sida wax walbaaba sida loo qorsheeyay haddii ay u dhacaan, inuu ciyaartoygani soo laaban doono koobka adduunka 5 maalmood ka hor, oo koobka adduunka waxaa ka dhiman 5 toddobaad, balse ciyaartoyga Dybala waxa uu soo laabanaya isagu ama sida la qorsheeyay waxa soo laaban doonaa 3 ilaa 4 toddobaad kadib, taasoo uu ciyaartoygu ku dadaalayo sidii uga qayb qaadan lahaa koobka adduunka. dhinaca kale tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa si rasmi ah u shaaciyay inuu koobka adduunka seegi doono ama uu ka maqnaan doono ciyaartoyga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Liverpool ee Diego Jota, kadib markuu ciyaartoygan dhaawac ka soo gaadhay kulankii ugu dambeeyay ee kooxda Liverpool ka badisay kooxda Manchester City horyaalka Ingiriiska ee Premier League. sidoo kale ciyaartoyda koobka adduunka seegi doonta waxaa ka mid ah ciyaartoyga kooxda Chelsea ee N'Golo Kante, kaas oo dhaawac ka soo gaadhay isaguna kulan ka mid ah kulamada ay la ciyaarayay ama ciyaaraysay kooxda Chelsea. ciyaartoygan oo marka hore la filayay inuu mari doono daaweyn dabiici ah ayaa go'aansaday inuu qalliin marayo, taasoo ka dhigan ciyaartoyga N'Golo Kante inuu ka maqnaan doono koobka adduunka, sidoo kalena uu kooxda Chelsea ka maqnaan doono muddo lagu qiyaasay 4 bilood, taasoo ka dhigan ciyaartoyga N'Golo Kante inuu garoomada kusoo laaban doono bisha 1 ama bisha 2 ee sanada dambe ee sanada 2023. sidoo kale kooxda Chelsea waxaa isaguna ka maqnaan doono koobka adduunka ciyaartoyga Reece James oo ay sheegtay kooxdu inuu maqnaan doono muddo lagu qiyaasay ilaa 8 toddobaad. isla horyaalka Ingiriiskana ciyaartoyda koobka adduunka seegi doonta waxaa ka mid ah ciyaartoyga kooxda Newcastle United ee Alexander Isak, kaasoo isaguna dhaawac kaga maqnaan doono koobka adduunka, sidoo kale la filayo ciyaartoygan inuu kusoo laaban doono kooxda bisha January ee sanada cusub ee sanada 2023. halka ay socdaan wadahadallo u dhexeeya kooxda AC Milan iyo ciyaartoyga Rafael Leao, kaasoo ku saabsan heshiis kordhin ay kooxdu soo bandhigi doonto ciyaartoygan. haddaba sida la sheegay waxaa adkaan doonta inay kooxdani wadahadal fudud ama heshiis fudud ay la gaadho ciyaartoygan, maadaama uu jiro ciyaartoygani kooxa ay doonaya ay jiraan sida kooxda Chelsea iyo Manchester City, sidoo kalena uu jiro khilaaf u dhexeeya ciyaartoyga Rafael Leao iyo kooxda AC Milan, kaasoo ku saabsan inuu ciyaartoyga mushaharkiisa, oo ciyaartoyga Rafael Leao waxa uu doonayaa kooxda AC Milan marka uu heshiis cusub saxiixay ama uu heshiis kordhin u sameynayo inay kooxdu siiso mushahar uu ku qiyaasay ama isagu ku doonayo
12 milyan oo euro sanadkii, halkay kooxda AC Milan ciyaartooygan ula diyaar tahay mushahar ah 7 milyan oo euro sanadkii. haddaba kooxda AC Milan ayaa waxaa jiray ilaa shalay wadahadal u dhexeeyay mas'uuliyiinta kooxda iyo sidoo kale ciyaartooyga Rafael iyo wakiiladiisa, halka uu jiro xog ah inuu ciyaartooyga ugu dambeeyay ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League ka ciyaara ee ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or-ka uu ahaa ciyaartooyga Cristiano Ronaldo oo ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or-ka sanadii 2008 xilligaas oo ciyaartooygani ka ciyaarayay horyaalka Ingiriiska ee Premier League. ciyaartooyga Ronaldo ayaa noqday ciyaartooyga ugu dambeeyay ee isagoo horyaalka Ingiriiska ee Premier League ka ciyaaraya ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or-ka ama kubadda dahabka ah, oo intaa kadib muu awoodin ciyaartooy ka ciyaara horyaalka Ingiriiska inuu ku guuleysto abaalmarintan ama Ballon d'Or-ka inuu qaado isagoo ka ciyaaraya horyaalka Ingiriiska ee Premier League, oo laga soo bilaabo sanadii 2008 ilaa hadda oo ah 14 sano. 14kii sano ee u dambeeyay dhammaan ciyaartooydii ku guuleysatay abaalmarintan waxay dhammaantoodba ka ciyaarayeen ama ka soo jeedeen horyaalka waddanka Spain ee La Liga. ciyaartooydii ku guuleystay 14kii sano u dambeeyay tan iyo sanadii 2008 dhammaantoodba waxay ahaayeen ciyaartooy ka ciyaarta horyaalka La Liga sida Cristiano Ronaldo, Messi iyo Luka Modric. sidoo kale waxay kooxda Arsenal filaysaa inay si fiican u bilaami doonaan wadahadal ay kooxdu doonayso inay la furto ciyaartooyda kale Saliba iyo Bukayo Saka, kuwaas oo ay kooxda Arsenal ku doonayso inay ciyaartooydan usoo bandhigto heshiis kordhin. haddaba ma jirto wax cabsi ah oo ay ka qabto kooxda Arsenal inay kooxo kale soo darbadaan ciyaartooydan, sidaa darteed kooxda Arsenal ayaa doonaysa inay tartiib ah u furto ama wadahadal loo furto labadan ciyaartooy oo ay doonayso inay heshiis kordhin usoo sameyso. kooxda Tottenham ayaa iyaduna doonaysa inay dheerayso hogaaminta uu kooxda hogaaminayo tababaraha kooxda ee Conte. haddaba kooxda Tottenham ayaa sidoo kale doonaysa tababaraheeda inay heshiis cusub u saxiixdo kaas oo ah ilaa sanada 2025. kooxda Tottenham ayaa sidoo kale diyaar u ah tababaraha kooxda inay mushaharka u kordhiso oo uu noqdo 20 milyan oo euro sanadkii, halka uu hadda ka qaato tababare Conte 15 milyan oo euro sanadkii. haddaba tababaraha kooxda Tottenham ee Conte ayaan ku degdegi doonin inuu go'aan ka qaato mustaqbalkiisa oo waxa uu kaadin doonaa ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan. ugu dambeyntii haddii aynu eegno kulamada ugu muhiimsan ee la ciyaari doona caawa horyaalada ugu waaweyn qaaradda Yurub, waxaa ka mid ah kulamadii la ciyaari lahaa ama kulanka ugu muhiimsanaa kaasoo u dhexayn lahaa kooxaha hogaanka haysa iyo kooxda kaalinta labaad ku jirta horyaalka Ingiriiska ee Premier League, waxaana kulankaasi dhex mari lahaa kooxaha Arsenal iyo Manchester City, balse kulankan ayaa dib loo dhigay oo kooxda Arsenal habeen dambe waxay ciyaari doontaa horyaalka Yurub ee Yurub League, oo kooxda Arsenal waxaa jiray inaanay ciyaarin kulan horyaalka Yurub ee Yurub League ah, sidaa darteed kulankii ayay habeen dambe ciyaari doontaa, waxaana kulankan dib loogu dhigay inay kooxda Arsenal Yurub League ciyaari doonto. haddaba kulamada kale ee la ciyaari doono ayaa ah kooxda Chelsea ayaa la ciyaari doonta kooxda Brentford kadib markii ay kooxdu kasoo baxday kulan ama ay kooxdu ka timaaday guul ay kasoo gaadhay kooxda Aston Villa. sidoo kalena kooxda Chelsea waxay sameysay inay 4 guulood oo xiriir ah la gaadho tababaraha cusub ee kooxda ee Graham Potter. sidoo kalena kooxda Chelsea waxay awooday in 4 kulan oo xiriir ah oo u dhexeeya horyaalka iyo Champions League ay kooxdu 4 kulanba ay shabaqeeda ilaashato ama ay clean sheet sameyso, oo kooxda Chelsea oo markii ugu dambeysay clean sheet sameysa ama shabaqeeda ilaashata 4 kulan oo xiriir ah waxay ahayd sanadii 2016. haddaba kooxda Chelsea ayaa isku dayi doonta inay ka agdhawaato kaalmaha saddexaad ama kaalinta saddexaad oo ay ku jirto kooxda Tottenham, maadaama ay kooxda Tottenham la ciyaari doonto kooxda Manchester United. sidoo kale kooxda Liverpool ayaa la ciyaari doonta West Ham, oo kooxda Liverpool kadib markii ay ka timi guusha ay ka gaadhay kooxda Manchester City waxaa la filayaa inay guushaasi dhiirigelin siin doonto ciyaartooyda iyo sidoo kale tababaraha kooxda, oo ay kooxda Liverpool kusoo laaban doonto dhabaha guusha oo ay kooxda guul ka gaadhi doonto kulanka ay la ciyaari doonto kooxda West Ham, halka ay kooxda Real Madrid horyaalka La Liga la ciyaari doonto kooxda Elche, oo kooxda Real Madrid iyaduna kadib markii ay ka timi guusha ay ka gaadhay kooxda Barcelona kulanka El Clasico kooxdu waxay doonaysaa ama rajeynaysaa inay hogaanka sii dheeraysato oo ay 6 dhibcood ku qabato ka hor inta aanay maalinka beriyaha la ciyaarin kooxda Barcelona kulanka ay la ciyaariso kooxda Villarreal. ugu dambeyntii kulanka ugu muhiimsan ee caawa la ciyaari doona ayaa ah kulanka u dhexeeya kooxaha Manchester United iyo kooxda Tottenham. haddaba haddii aynu eegno kulamadii ugu dambeeyay ee labada kooxood u dhexeeyay, kooxda Tottenham 4 kulan ee ugu dambeeyay ay u dhexeeyay Manchester United iyo Tottenham. Manchester United 3 kulan ee ugu dambeeyay waxay awooday inay kooxdu 3 kulanba badiso. sidoo kale Manchester United 3 kulan ee ugu dambeeyay waxay kooxda Tottenham ka dhalisay 3 gool, oo 3 kulan ee ugu dambeeyay kulanka ugu dambeeyay waxa uu ku dhamaaday 3-2 waxaana badisay Manchester United. labadii kulan ee ka horeeyay Manchester United waxa ay ku badisay 3-0 iyo 3-1. haddaba kulanka ugu dambeeyay ama guushii ugu dambeeyay ay kooxda Manchester United ka gaadho kooxda Tottenham
waxay ahayd sanadii 2020 xilligaas oo uu kooxda Tottenham watay tababarihii hore ee kooxda ee Jose Mourinho. waxaana Jose Mourinho awooday xilliga inuu kooxda Manchester United garoonkeeda Old Trafford kaga badiyo natiijada 6-1. haddaba labadan kooxood ayaa la filayaa Manchester United kadib markii ay ka timi bareejo ay la gashay kooxda Newcastle United, sidoo kalena kooxda Tottenham ay guul ka timi oo ay kooxdu ku jirto hadda kaalinta saddexaad oo ay isku dhibco yihiin kooxda Manchester City. ayuu tababare Conte doonaya inuu kaalinta labaad galo oo uu ka agdhawaado kooxda Arsenal oo laba dhibcood u dhexeeyaan hogaanka horyaalka iyo kooxda Tottenham, halkay kooxda Manchester United isku dayi doonto kadib markii ay kooxda bareejo gashay oo aan kooxda laga badin oo markii ugu dambeysay Man United laga badiyo waxa uu kulankii Manchester City. haddaba sidaa darteed Man United waxay isku dayi doontaa inay kaalinta saddexaad ama kaalmaha afraad kasoo agdhawaato maadaama uu jiro dhibco u dhexeeya iyada iyo kooxda Chelsea oo ah kooxda kaalinta afraad ku jirta. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar, subscribe na dheh channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe.